Assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal oo walaalkiina barqado maanta inay wada qiso aad u xanuun badan taasoo aan rajeynaya in casharo badan aad kala bixi doontiin soo dhawaada halkanna waa janaalkeena labaad nagu bina janaalka dad ku cusub tahay subscribe daadid muuqaalka haddaadna like saar naga like saar asxaabtaada la wadaag anakana waqtaan iska lumin gudaha u galna qisadeena sheekadana waxay ka dhacday dalka Nigeria gaar ahaan state lagu magacaabo Nabri State. Xaafadda oo ku tiila waxaa ku nooleed haweeney lagu magacaabo Agnes. Dii wax yar Agnes gaar shakana ninkeedu waxa uu dhintay sanado ka hor. Iyaduna waxay dhashay laba gabdhood oo aad u qurux badan. Labadaas gabdhood oo iskuul u dhiganayay. Haddii labadaas gabdhood wax yar faahfaahiyana, gabadha ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Sandra. Waxayna inta badan qaban jirtay howlaha guriga gabadhanna waxay gabar waxbarashada aad ugu dadaashaa. Yaana kaga reebin walaasheeda Anita. taasna Sandra iyo wax yar ka yareed laakiin gabar waxay ahayd very intelligent oo maskaxdeeda aad u sareysa waxbarashadan aad ugu dadaasha mar walbana iskuulka kaalmaha u horeeyay geli jirtay iyada ayaana waxay ku guuleysan jirtay hadiidaha inta ugu badan sidaas oo kale dadka xaafadaasi ku nool ay gabadhan way ogaayeen iyo waliba siday u cilmi badan tahay aqoonteedan had jeer u sareyso iyagoo had jeer maama Agnes waa manager gabadhan dhihi jiray gabadhaadu waa gabar wanaagsan si kastaba ahaatee labadii gabdhood ee Sandra iyo waliba walaasheeda Anita ugu dambeyntii waxa ay soo gabagabeeyeen waxbarashadii dugsiga sare laakiin goortii ay si ay waxbarasho u dhameeyeen ay maamada xilligaas waxay isweydiinaysay gabadheeda labada gabdhood maadaama ay dhashay mid ay doonaysay inay jaamacad u dirto sababtoo ah tan kale umaysan awoodin xilligaas iyada oo ka fakaraysa ugu dambeyntii ay maamadii Agnes waxay go'aansatay gabadheeda yarta taasoo ahayd Anita inay iyada jaamacadda u dirto arka walaasheeda kalena iyadana sanadka dambe u dirto habeenayna gabadheeda u timid waxayna ku tiray gabadheedii dhageyso wadogta annaka xaaladdan ku sugannahay tan kale xilligan si dheer aniga aad bay ugu adag tahay labadii inaan jaamacadda ka bixiyo marka gabadheedii hal arrin ayaan ka codsanayaa Sandra ayaa xilligaas ku tiray okay hooyo macaan maxay tahay kadibna hooyadii ayaa waxay ku tiray gabadheedii wax kale ma ahane waxaan kaa rabaa inaan walaasha jaamacaddan geeyo adigana aad joogto aniga ay la shaqeysay si aan walaasha jaamacadda uga bixino arrinka Sandra kuma aysan farxin waxayna tiri hooyo macaan si camal anigu waxaan doonayaa mustaqbalka dhakhtar inaan noqdo marka mariyada ayaa doonaysa inay iga burburisid hooyadii ayaana xilligaas ku tirmaya gabadheedii hadda waad ogtahay maxaa kaloo sameeyaa sababta walaasha maskax fiicanna waa ay leedahay iyadana waxaan rajeynayaa meel fiican inooga soo bixi doonto markay jaamacadda dhammaysana adigana ka cabsan ayada iyo waxaas oo idil bixi doontaa noloshiinana waa isbedeli doontaa ugu dambeyntii gabadhii Sandra hooyadkuma soo afcelin ugu dambeyn way ka aqoonshay waxayna tiri okay hooyo macaan si hadday tahay amarkaada ayaa jira marka walaasha ayaan ogolaanaya anigana sanad dambe ayaan jaamacad isaga biirayaa maamadii arrinka markay maqasho waa ay ku farxday laakiin xilligaas waxaa maqlaysay gabadhii kale Anita maadaama walaasheeda iyada lagala hadlayay kadibna qolkeeda ayay ugu timid waxayna ku tiri abba ay dhegeyso waxaan kuu ballan qaadayaa marka aniga jaamacaddan sidaas u soo dhammeeyo weliba shaqaan sidaas u helo aniga ayaa jaamacadda ka bixi doona iyo waliba wax walba u baahantaan aniga ayaa ka caawi doona iyadii dhakhtarnimadan aniga ayaa ku ramay doona Sandra goorta intaas maqasho way farxad waxayna tiri okay abay diyaar waaye laakiin ballantaasi hadii oo fidoontid Anita ayaana ku tiri abay ka cabsan aniga ayaa waxaas idil ku ballan qaadaya marka aniga warsugo Sandra ana walaasheeda way ka qoshay maalmihigana waxaa la galay gabadhan iyo waliba in loo aruuriyo lacagay ay ku bixi lahayd maadaama gabadha ay jaamacadda halkan ay ka baraneen oo jaamacadda waxay waadaysay halkaasi magaalada Lagos kadibna Lagos markay ka tarmayso dib ay xaafadan ugu soo laabanaysay subaxii ugu dambeeyay ayayna walaasheed halkaas ku macsalaamaysay inkastoo Sandra xilligaas aysan ku faraxsanayn iyada kaligeed meesha looga tagay dana waxay sidaas oo kale ku faraxsaneed in walaasheed hadda jaamacadda ay aadayso ismacsalaameen iyo waliba habsiin kadib gabadhii yarteed Anita walaasheed ay halkaas uga dhaqaaqday kadibna waxay halkaasi ka raacday bas u socday dhankaas Lagos iyadoo dhinacaas Lagos iska soo xaadirisay ugu dambeyntii goorta Lagos soo gaartana gabadhii yartaas jaamacadda ay iska xaadirisay iyadoo xilligaas hambi weyn lahayd oo waxay doonaysay inay gabadhaas ay noqoto gabar si fiican oo aad ugu takhasustay dhankaas computerizedka si kastaba haatee jaamacaddii waa ay ku guuleysatay gabadhii bal wax yaraan dib ugu soo laabana dhankan iyo Nabri State gabadhii yareed Sandra iyo waliba hooyadeeda waxay bilaabeen inay si adag ugu shaqeeyaan sababta xilligaas aad ugu shaqeynayeen wax kale ma ahayn waxay ahayd maadaama maamada xilligaas lagu sugayay inay gabadha jaamacaddeeda ay ka bixiso iyo waliba waxyaabaha kale ee ku soo kordhaa sidaas oo kale Sandra waa ay shaqeynaysay oo hooyadeed ayay had jeer caawinaysay
laakiin hal jeer markay aragto ardayda isku fasalka ahayeen oo xilligaasi jaamacadaha u socda iyada waa ay ka murugoon jirtay hooyadayna hal jeer la hadli jirtay waxay dhihi jirtay hooyo macaan muujeeda ardayda annakaan isku fasalkayan jaamacadaha ayay aadayaan halka aniga keligay aan meeshan ku soo haray taasoo ay ka dhigan tahay hooyo macaan inaysan cadaalad ahayn sababtoo aniga waxbarasho ayaan u baahanahay maama agnes ayaana had iyo jeer gabadheeda deji jirtay iyadoo dhihi jirta gabadheedii yaa warwarin mar uun jaamacad waa geli doontaa keliya jaamacad ma'aan ee hiryooyinkaada ayaa halkaasi ka ciirsa doontaa ugu dambeynna waa ka rumay doontaa marka gabadheediyey walaasha ayaa noo maqan iyada ayaana imaanaysaa kadibna wax walba way dhammaanayaan hada jeer marka intaasi maqashana iyadu waa ay ku farxi jirtay si kastaba haatee sannaduhu waa isgureen kii koowaad ayaa tegey labaad waa tegey saddexaadna waa tegey ugu dambeyntii gabadha yarta anita waxbarashadii waa ay soo dhammaysay kadibna dib waxay ugu soo laabatay magaaladii anabra state waxayna xilligaasi kadib bilaabeen inay waalidiintii xilligaasi halkaasi ay ku farxaan oo waxaan ka wadaa hooyadeed iyo weliba gabadhii kale ee walaasheen laakiin xilligaasi gabadha anita fikir kale ayayba la timid sababta waxa ay tiri hooyo macaan dhegayso anigu waxaan doonayaa waxbarashada inaan horumar fiican ka gaaro horumarkaasna wax kale maahan hooyo macaan waxaan doonayaa inaan master diyaariyo maadaama hadda bachelor aan dhameeyey marka hooyo macaan ka war haddii arrinkaas iga caawisid xilligaas maamud ayaa yaabtay waxayna tiri gabadhiisa u hadlaysaa maxayta mastarka iyo waxna ka hadlaysid waxa laga rabay xilliga inaad shaqaysid markaas tiri hooyo macaan sidaas maahan anigu waxaan doonayaa lacag fara badan inaan sameeyo markaan ku baryo hooyo macaan xal raadi weliba aniga lacag ayaan u baahanahay lana soco hooyo macaan mastarka ma doono inaan halkaani ka barto ma waxaan rabaa inaad halkaas iyo UK si aan waxbarashadeeda ugu wato ugu dambeynna waxaan soo laabanaya aniga waxbarasho fiican ugu takhasusay weliba lacag badan samayn karaa maamadii xilligaas markay maqashay waa ay ka yara yaabtay kadibna waxay tiri okay gabadhaydii si hadday tahay bal arrinkaasi waan ka fekeraa waan arkaa bal waxaan samaynayo iyadiina waxay tiri okay hooyo macaan adiga waa inaa intaa samaysaa sababtoo an waxaan doonayaa hooyo macaan lacag badan inaan sameeyo lacagtaas kadibna noloshaani waa ka bixi doonaa weliba tan faqiirtinimada marka hooyo macaan igu caawi si aan mastarkayga halkaas ugu wato hooyadiina kama aysan diidin ee waa ay ka aqbashay kadibna maamadii ee agnaseed waa ay soo dhadda waxayna u timid gabadheeda kale waxayna tiri gabadheedii dhegayso midaan kuu sheego walaasha anita waxay tiri waxay doonaysaa inay waxbarashada ay sii wadato oo ilaa heer sare ay ka gaarto macnaha master marka gabadheedii balka waran haddii adiga aad iska guursatid kadibna walaasha lacagta adiga aad ku guursatid aan waxbarashada uga bixino hadhowna noloshan faqiirtinimada ay naga saarto laakiin arrinkaasi sandara gaashaanka iyo darurtu waxayna tiri hooyo macaan maxaa kugu dhacay caaw ballantii awal hore iga qaaday tiri jaamacadda ayaan ku geynayaa xitatan kale guurka iyo xilligan aad sheegaysid taas lagama yaabo hooyadii ayaana xilligaasi bilowday gabadheedii inay ku qanciso laakiin arrinkaasi sandara waayay kadib waxayna tiri maya hooyo macaan lagama yaabo in aniga arrinkaasi sameeyo tan kale fiiri waa aniga waxbarasho darteed ayaa waxaan u samaynayaa ama walaashii si ay jaamacad ugu biirta ayaa ninaan rabin u guursanayaa weliba nin hanti leh lagama yaabo hooyo macaan taas inaan sameeyo arrinkaas aniga kuma raacsani maamadii wax walba ay isku day si ay gabadhan uga raadiciso sababtoo maamada agnes xilligaas waxa u muuqday gabadheeda hor fiican gaarta kadibna iyada u shaqaysaa inkastoo gabadha yarta aysan dar arrinkaasi diiday maamadii isma aysan dhimine waxay u tagtay wiil kale oo walaalkeeda si bal arrinkan ugala xaajoogto kadibna wiilkii walaalkeeda yuutumid waxayna tiri war saaxiib u dhegayso gabadhayda ayaan doonayaa dhankaasi dibadda inaan u diro si ay waxbarashada u soo gabagabayso laakiin tii kale aniga aan dhalay sandar ayaan waxaan doonayaa nin taajir inaan siiyo bal kaala arrinkan igala xalli adigana nin taajir oo iisi raadi si gabadhaydaan waxbarashada ugu dirsado ugu dambeyntiin waxa uu ku yidhi intaasoo kaliimiya kadib aniga ayaa arrinkaas xalinaya isagan islamarkiis ma uusan dhibin waa u baxay kadibna wuxuu xilligaasi bilaabay inuu keeno nin lagu magacaabo saag haddii bal wax yar ninkaasani kaga sheegno waa nin isaga taajira inkastoo haddana taajir yahay xaafadaasi uu ku nool yahay wax sumcada kuma laha sababtay ugu wacan tahay inuu cabitaan fara badan cabo keliya cabitaan maahane xitaa daroogooyinka iyo waxyaabahaas ayuu ka ganacsadaa sidaa darteed ayuu hantidaasi faraha badan ku sameeyey ugu dambeynna odaygu markuu intaasi ka soo dhaadhiciyey gabadhiisa ayuu ugu soo laabtay oo waxaan ka hadlayaa sandara ayuuna bilaabay inuu arrinka u sheegaysa wax walba xilligaasi ka dhaadhiciyey ugu dambeyntiina gabadhi way iska aqbashay sababta dooq kale uma furnayn asbuuc kadibna arooskooda ayaa dhacay weliba aroos weyn ayaa xaafadii looga dhigay lacagtii ninkii xilligaasi u bixiyana waxaa dibadda loogu diray gabadhii yarta ahayd taasoo ahayd anita iyadana waxay aaday dhankaas UK si iyada waxbarashadeeda ugu sii wadato
laakiin arrinka xanuunka badan ee xilligaasi gacmaha la gashay Sandra wuxuu ahaa in ninkaas ayada ay guursatay oo ku noqday nin aad u xun. Keliya xumaan maahane waxay tahay ninkan inuu isaga si xun ula dhaqmayay, had jeerna garaaci jiray. Habeenkiina waxa uu guriga ku soo laaban jiray isagoo cabsan, iyada ayuu had jeer garaaci jiray. Muddo bilooyin gabadhii noloshaasi markay ku nooleed way u dulqaadan weysay, kadibna way ka soo dhaqaajisay xaafadeeda ayayna ku soo laabatay, iyadoo boorso yarka ka soo xiratay. Hooyad ayayna u timid weliba iyadoo duruufta laga dareemayo. Hooyad ayayna arrinkii la wadaagtay. Maamadii goorta intaasi maqasho way ka naxday. Sandra ayaana xilligaasi tiri hooyo macay dhegayso, aniga laguma yaabo gurigaas inaan ku laabto. Haddii xitaa aan ku laabanayana anigoo meyd ayaan ku laabanayaa. Wax jikada gal kadibna midi soo qaad anigana halkaan igu dil ayay ku tiri xilligaasi. Maamadii ayaana xilligaasi gabadheeda ka naxday, waxayna tiri okay, gabadheydii waan ku fahmi karaa. Marka gurigan kama baxayd halkaan iska jooga. Waxaan rajaynayaa wax walba inay iska wanaagsanaa doonaan. Si kastaba ha ahaatee, Sandra iyo weliba hooyad guriga ayay ku sii noolaadeen. Noloshaas ayayna la sii hardameen, waqtiguna sidaas ayuu ku socday. Laakiin arrinka xanuunka badan ee xilligaasi dhaca waxay tahay gabadhii yartahayd Anita. Markii mobilkeeda la waco, maba galayo. Meelo badan ayayna isku dayeen inay ka raadiyaan, laakiin way ku guuldareysteen. Sanaduna mar kale ayay isbureen. 3 sano ayaana ka soo wareegatay. Gabadhii Anitana wax waran lagama helin. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah, Sandra iyadoo xaafadeeda joogtay ayaa waxa u timid gabar kale oo ay saaxiibo yihiin, weliba gabadhaas oo ka timid dhankaasi Lagos. Kadibna waxay ku tiri saaxiibo maxaa kuu dhacay? Adiga waxaa halkaan isaga fadhisaa. Ma ogtahay walaasha Lagos inay isaga raaxaysanayso, iyadoo xilligaasi joornaal iyada ay waday. Sawirkeedana xilligaas oo ku sawirnaa ayay bilowday inay tusto. Sandra markay gabadhii xilligaas aragtay way aamini weysay, waxayna bilowday joornaalka inay si fiican xilligaas u fiiriso. Hooyadayna xilligaas wacdi waxayna tiri hooyo macaan khalas orod, war fiican ayaaba kuu hayaaye. Gabadhii la raadinayaba Lagos ayayba nala joogtaa ka warne. Maamadii goorta intaasi baqasho way aamini weysay, waxayna tiri si xamal inta hadday magaalada dib ugu soo laabato maxay nala soo xiriiri weysay, maxay tahay xaafadda noogu soo booqan weysay. Kadibna Sandra ayaa tiri maaqan hooyo macaan, laakiin waa inaan baxnaa anakan aan aadnaa dhankaasi Lagos si aan bal gabadha halkaas ula kulanno. Maamadii Agnesna kama aysan diidin gabadheeda way ka aqbashay. Labadoodana go'aan waxay ku gaareen inay soo aadaan caasimadii. Wax badan ay soo socdeen ugu dambeyntii waxay soo gaareen caasimadii, kadibna adreeska iyaga la soo siiyay ay toos u soo aadeen. Goortay sidaas u soo gaareen dabaqii gabadha xilligaasi ka shaqaynaysay ayaa xafiiskeedii weliba loo sii tilmaamay. Kadibna xafiiskooda ayay toos ugu galeen. Goortay sidaas ugu galeen gabadheena Anita way yaabtay, waxayna tiri maxaa halkani ka socdaa? Hooyo weliba walaashii meeshan maxaa ka samaynaysiin? Maamadii ayaana xilligaas gabadheeda ku jeesatay, waxayna tiri gabadheydii maxaa kugu dhacaysaana maxaa waaye? Tan waxaan noogu sheegi weysay inaad ka soo laabato dhankaas UK. Goormeena soo laabatay? Shaqada noocaana say camal inta anaka nama soo barmiya gabadheydii maxaa dhacay? Anita ayaana xilligaas bilowday inay tiraahdo hooyo macaan, hadda waa mashquulsanahay. Mar kale ayaan wada hadlaynaa. Hadda ma doonaya arrimahaas inaan galo. Marka iska laabta. Maamadii ayaana tiri maxay tahay gabadhi waxaa ka hadlaysay laabashada ka hadlaysay maxaa waaye? Waad ogtahay nolosha aan ku dhex noolnahay. Tan kale ma ogtahay gabadhii walaasha ahayd guriga way ka saartay maadaama ninkiisa xun ula dhaqmay. Marka sidaas ayaa xaaladdu jirtaa. Anita ayaana bilowday xilligaas soo inay ka warwareegto. Waxayna tiri hooyo macaan hadda ma doonayo waqti inaan geliyo. Marka waynu bari arda iska laabta. Aniga ayaa dib in kala soo hadlaya. Xilligaas meesha Sandra ayaa joogtay, waxayna tiri kaa walaalay maxaa ku dhacay? Haydana sidaa u hadlaysid. Ma ogtahay waxbarashada maanta heerkan ku soo gaartay in aniga rafaad badan aan maray. Nin aan rabin aan u guurso wali cabtooya. Sidaa darteedna ninkii uu soo garaacayna ka soo cararay. Kadibna Anita ayaa xilligaas tiri hore ka soo guurstaani maanta guursanay dhageyso walaalay. Wuxuu ma doonayo inaan galo. Marka dadka xitaa inay gaarkan mar rabe bax gurigeena ku laabta. Aniga ayaa dib in kala soo hadlaye. Sandra xilligaas way aamini weysay waxay maqlayso. Gabadhii rafaadka ay dilu martay ayaa maanta iyada iskala weyn. Kadibna waxay tiri si ku laabanayna adiga ayaan ku imaanay. Maamadii xilligaas hadashay ayaan tiri gabadheedii dhageyso. Anaka xaafadaas kuma laaban karno. Xitaa xalba sameey. Gabadhan walaasha adiga guriga howlaha ka caawisa ana kula joogto. Sidaas oo kalena waxbarashada ka dhiiba. Anita ayaana xilligaas tiri maami dhageyso. Aniga mar rabo guriga inaan keeno. Inkastoo maamadii ay ku ceelisay ugu dambeyntii waxay tiri okay. Xalba ayaan ini sameynay wax kale ma ahan. Guriga ayaa joogaysiin. Lacag ayaan siinayaa. Laakiin kaliya waxa ku joogaysiin waa hal shardi. Maamadii ayaana tiri maxaa waaye? Waxayna tiri guriga ayaa ka shaqaynaysay weliba sida shaqaalaha kale. Howlaha guriga ayaa qabanaysa haddii cunto karis iyo waxyaabo kale ay tahay. Iyagana intaas markay maqleen ma aysan ka diidin. Sababtoo waxay ogaayeen nolosha baadiyaha iyo waxay tahay
kadibna waa ay ka aqbaleen subaxigana waxay iska soo xaadiriyeen gurigii weyneed ay ku nooleed Anita. Xilligaasna Sandra way aamini weysay waxayna tiri kaalay gabadhii rafaadka ay dilu marta maanta ma gurigeeda ayaa sida shaqaalo kale ugu shaqaynaysiin. Si kastaba haatee maamada iyo xilligaasi qalbi u dejisay waxayna tiri gabadheedii wax walba way iska hagaagayaan marka bal hawshan aan iska sii wadno. Sandra iyo weliba hooyada Agnesna guriga ay si uga shaqaynayeen ilaa maalin laga gaaray subaxyada ka mid ah. Gabadhii Sandra waxay qabanaysay howlaha guriga gaar ahaan dhar iyo xilligaas dhaqaysay waxayna isticmaalaysay qasaalada. Kadibna waxa u timid walaasheed Anita waxayna tiri kaalay maxay qasaaladu isticmaalaysaa waa inaad gacmahada isticmaashaa sababtoo ma doonaya qasaaladeedina iga hadlaysid. Sandra ayaana tiri mar waani dhegayso waan ogahay inaan kuu shaqaynayo laakiin waqti qasaalada isticmaal hawshu waa ii fududaanaysaa marka sidaas ayaa u isticmaalayaa. Anita ayaa tiri walaalay madaxa iga dhegayso ma doonaya hadalkan manacniga dhegaysto haddii dharkaan gacmahan ku dhaqayn la soco gurigan ayaan ka cirinaya kadibna wadooyinka ayaa seexanaysaa kan kale waa ogtahay haddii guriga ku laabatay weli meesha ka timid nolosha sida ay kuu noqon doonto markaani murandan ma doonay waa inaa howlaas qabataa. iyadiina kama aysan diidin waxay tiri amarkaada ayaa jira. wixii intaasi ka dambeeyeen howlihi ayay sidaasi ku wadeen. Anitana waxay bilowday si xun inay hooyadii weliba walaasheeda ula dhaqanto keliya intaas arrinka kuma haysan keena xitaa qolkii dhan kaamira ayay ku xirtay meel walbana waxay kala socotay mobilkeeda iyadoo xilligaasi ka shakasaneed waxa ay kuwaani samaynayaan. Sandra ayaana hooyadu timid waxayna xilligaasi tiri hooyo macaan noloshan looma dul qaadan karo tan ka fiiri adiga ayaa igu qasabtay ninkaas inaan guurso si ay walaashay jaamacad u aado haddana waa ujeedaa jaamacaddii aniga aan ka bixiyay ayaa maanta sidaas ula dhaqmaysaa. hooyadii ayaana tilmaamay gabadheedii waa walaasha marka waxba u arkin walbana way iska wanaagsanaa doonaan keliya waxaan uga baahan yahay inaan dul qaadano waxaan rajeynayaa wax walba si wanaagsan ay ku sanaa dhamaan doonaan. sidaas oo kale Anita xitaa waxay bilowday asxaabteeda guriga inay keento xilligaas ay guriga keenaysana waxay asxaabteeda bada jirtay guriga shaqaalaha ka shaqeeya weliba iyadoo xilligaasi walaasheed iyo weliba hooyad u yeeri jirtay si xun oo la dhaqmi jirtay. asxaabteedana sidaas oo kale way ugu qosli jireen. war wax yaraan ku laaban Anita waxaa jira wiil ayada jecel kaasoo lagu magacaabo Frank. maalin maalmaha ka mid ayuuna xaafadda yimid xilligaas oo guriga imaanayana wuxuu arkay Sandra iyo weliba hooyadeeda isagoo xilligaasi salaamo waxa uuna ku yidhi galab wanaagsan tiri ayaana tihin. Sandra ayaana xilligaas u jawaabtay tiri mudana waan fiicanahay idagana iska waran isagana waxuu yidhi waan fiicanahay kadibna wuxuu ku yidhi Sandra aan bal su'aalku weydiiye adiga hooyada shaqadan in muddo ayaa ku jirteen tan kale gurigan meeqa sana ayaa ka shaqaynayseen. kadibna gabadhii intaysan jawaabin ayaa xilligaas ninkan maskaxdiisa waxaa ku taagneed arrinkay u sheegtay Anita taasoo ahayd inay tiri hooyada iyo weliba aabbahay waa ay dhinteen iyadana isma aysan dhiman warka ayay u sheegtay weliba meeshay ku sabarayay intay u shaqaynaysay laakiin xilligaas meeshay waxaa timid Anita goorta aragta labadan islaanayana arrinkaas aad bay uga carootay waxayna xilligaas tiri amay gabadhan sirtaada bannaanka geentaa. Frank ayaana xilligaasi baxay. Anita ayaana walaasheeda ku soo jeesatay kadibna waxay bilowday inay aad ugu qayliso iyadoo xilligaas ku tiri aan su'aalku weydiiye maxaa saaxiibkii u sheegaysay. kadibna Sandra ayaa tiri ma xumaysan jirin xaaladii kaliya ayuu weydiiyey. Anita xilligaas areysan ayaana tiri dhegayso mar dham haddaan ninka sagtay aan kugu arko la soco shaqadan ayaan ka cirinayaa weliba kaliya ma ka cirinaya la soco adiga hooyada waa israaciisiin kadibna wadooyinka ayaa seexanaysiin. Sandra ayaana tiri okay marow amarkaaga ayaa jira. labaas markay arrinkaasi ka soo wareegatana waxay isguursaday Frank iyo weliba Anita. arooskaas ay dhigteenna ma uusan ahayn aroos badan dad badan ay ka soo qayb galeen sababtay ugu wacnayd Anita oo hore u tiri waalidiinteeda waa ay dhinteen asxaabteeda kaliya ayay wactay. sidaas oo kale ninkii Frank ahayna isagana waalidiintiisa ayuu kansiyay weliba dadkii qaraabada ahay. xilligaasna howlaha inta ugu badan waxaa qabanayay Agnes iyo maama Agnes iyo weliba gabadheedii Sandra iyagoo xilligaas howlaha inta badan qabanayay. Anita ayaana hada jeer ku hadi jirtay inaysan banaanka u soo bixin oo shaqaalaha kale cuntada ay geegeynayaan iyagana labadoodana ay jikada ku qoran yihiin iyadoo xilligaas ka cabsanaysay in labadan arrinkooda ay fashiliyaan sidaa darteedna ninkan Frank oo halkaas uga dhaqaaqo. si kastaba haatee Agnes iyo weliba gabadheedii isma aysan diibin waxayna bilaabeen maamadii inay amarkeeda qaataan iyagoo xilligaasi bilaaba howlaha guriga inay qabtaan. ugu dambeyntii waa ay ku guuleystaan arooskiina waa uu soo dhammaaday iyagana siday caadadooda noloshooda iyo siyaasi ga wateen inkastoo haddana ay noloshaasi ku noolaayeen. Sandra noloshaas way dul qaadan weysay kadibna hooyada iyo waxay ku tiri maya hooy macaan tan mid oo dul qaadan kara maahan anigii walaashay wax walba ka bixiyey rafaad u maray jaamacadda ayada darteed isaga daayay ma iga rataa inaan hadda la sii joogo. maamadii ayaana xilligaasi gabadheeda ku soo raday weliba habsaysay waxayna tiri gabadheedii waan ogahay waxaad dareemaysid sidaas oo kale aniga waan kula dareemayaa laakiin waddo kaloo maanta inoo banan ma jirto inta haddii aan laabanana waad ogtaa waxa nagu dhacayaa. si kastaba haatee way iska dulqaateen bilooyinkuna way isgureen 9 bilood ayaana ka soo wareegtay welina guriga ayay ka shaqaynayaan.
gabadhii Anita iyadana wiil ayay dhashay. Qoyska iyo xilligaas waxay ku noolaadeen farxadda, halka maamadii Agnes iyo weliba gabadheediina ee noloshaas xanuunka badan ay ku nool yihiin. Sidaas oo kale gabadha Anita ma aysan jeclayn ilmaha la koriyo. Wiilkeedii dhashana hooyadii weliba walaasheed ayay waxay qasab uga dhigtay inay ayaga xanaaneeyaan, iyagana kama aysan diidin oo way ka aqbaleen. Ilaa maalin laga gaaray gabadhii yartayd ee Sandra waxay u timid walaasheed Anita, waxayna ku tiri mar way dhegayso, anigu waad ogtahay lacag yar ayaana siisaa, lacagtaasna anakana uma filna, sababta anaku waxaan ku noolnahay meel aad u fog, halkaas ayaana ka soo baxna baabuur soo raacnaa kadibna gurigaada ayaan waana, marka waxaan u baahnahay lacagtii inaan inoo kordhino. Kadibna Anita ayaa xilligaasi tiri alla dadka bal fiiri, war xitaa inta yarta aan siiyey may ku filnaa weysay, meeshii aan laydinka rabay inaad ii mahadcelisaan ayaa xilligan doonaysa inaan lacag kuu siyaadiyo. Dhegays ani ma doonaya hadalkaa malac inaan dhegaysto, haddaadna lacagtaas u baahnayn waddadu waa ay furan tahay, marka adiga hooyada meelahaas ku dhinta buuqdhan haygelin. Sandra markay ogaato walaasheed meesha ugu dambaysan ee ka taaganta waxay tiri okay maruu amarkaaga ayaa jira. Iyadana isma aysan dhibin, waxay bilowday inay hooleeda dib ugu laabato, sababta waxay ogaatay waddo kale inaysan meesha uga furnayn. Sidaasoo kale ayadii hooyadeedna hal jeer waxay ka soo luga jireen meel 10 kiilomitira, sababtoo gurigaani kuma aysan nooleen, keliya waa ay ka shaqo jireen. Kadibna habeenka ayay isaga tegi jireen oo gurigooda ku laaban jireen, subaxiina guriga ayay u soo bixi jireen, ay soo aadi jireen, galabnimadiina waa ay kasii carraabi jireen. Si kastaba ha ahaatee labadii sidaas ayay isaga dulqaateen, noloshaas ayayna sidaas isaga kaxaysanayeen. Inkastoo Sandra iyo weliba maamadeeda Agnes ay marar badan ay dadaaleen, haddana maamadii stress ayaa ku dhacay kadibna way xanuunsatay. Maalinkii dambena gabadhii yartahayd ee Sandra hooyadu waxay ula carartay dhanka isbitaalka, inkastoo haddana lacag aysan haysan waxay geysay isbitaalka dowladda. Kadibna maamadii baaritaan ayaa lagu sameeyey, dhakhtarka ayaana xilligaas yidhi maamada waxaa loo baahan yahay in qalliin lagu sameeyo, marka lacagtii qalliinka ayaa laga rabaa. Sandra goortay maqashay lacagtii qalliinka aad bay u naxday, iyadoo murugaysanayeen isla markiiba soo baxday kadibna guriga ayay ku soo laabatay. Xilligaas ay guriga imaanaysana waxaa joogay Anita iyo weliba ninkeeda kaasoo ahay Frank. Kadibna waxay tiri halkan oo keliya ayaa wax ka xalli kartaa. Kadibna labadooda ayay bilowday xilligaas inay la hadasho, weliba sheekada u sheegto iyo weliba hooyada xaaladda ay ku jirto qalliin ay u baahan tahay. Goortaysa warkii sidaas uga dhacday, Frank ayaa arrinkaas la danqaday, gabadhiina waa uu ka naxay. Kadibna waxa uu ku yidhi aad baan uga xumahay Sandra waxa hooyada ku dhacay, waxaana rajeynayaa in ayada dhowaan soo caafimaadi doonto. Isagoo xilligaasi lacag u tuuray waxaanu ku yidhi lacagtani inta ku xalli karto ku xalli, waana rajeynayaa inaan intaasi in kaleba inaan kula garab istaago. Sidaasoo kale Anita ayaa meesha iska dhigaysa qof wanaagsan ayaa tiri aad baan uga xumahay Sandra waxa hooyada ku dhacay, sidaasoo kalena xanuunka waan kula dareemayaa, laakiin anigana waxaan samaynayaa markaan xafiiska aada ayaan lacag yar kuu soo tuurayaa, marka lacagtaas labada lacagna isku dar, sidaa darteedna hooyadaana ku daaweey oo lacagta qalliinka ku bixi. Kadibna Sandra xilligaas waa ay dareentay in walaasheeda ay ku ciyaarayso, weliba hadda isaga dhigayso qof wanaagsan. Iyadana waxay tiri okay marwo hadalkaada ayaa jira. Anita ayaana tiri aniga isuga wax walba waxaan doonayaa inaan xalliye. Frank ayaana xilligaas yidhi anigu waan iska sii baxayaa ee labadiina sii sheekaysa. Laakiin goortii Frank uu sidaas u baxay qolkan oo iska aaday ayaa Anita walaasheeda ku soo deysatay, waxayna tiri dhegayso waan ogahay waxaad damacsan tahay, waxaad og tahay ninkayga inuu yahay nin naxariis badan, marka naxariistaas ayaad uga faa'iidaysanaysaa, laakiin aniga taas kama aqbalaye. tan kale dhegayso aniga lacag ayaan ku ballan qaaday, laakiin taas marnaba ha niyeysan, lagama yaabo aniga lacag inaan ku siiyo, sababtoo waxaan diidanay ninkayga inuu arrinkan i ogaado. Ogow mar dambe arrinkan oo kale haddii aad samaysidna adiga hooyada guriga ayaan toos inkaga ceerinayaa, toos ayayna u dhimanaysaa. Sandra oo aad u murugaysan ayaan isla markiiba soo carartay dhanka isbitaalka ayayna timid, lacagtii yarta ayayna xilligaasi bixisay, inkastoo haddana aysan ku filnayn. Waxay u sheegtay xilligaasi inay lacagta kale ay bixinayso, laakiin xilligaas Anita isbitaalka ay ku sugnayd walaasheed ayaa soo wacday. Kadibna waxay tiri safar ayaan doonayaa inaan aade, waa inaad guriga si dhaqsi aad u imaataa si adiga arrimaha iga caawisid. Iyadina kama aysan diidin, isla markiiba ay soo baxday guriga ayayna xilligaasi timid. Kadibna walaasheed ayay baabuurkii la soo raacday, walaasheedna xilligaas hore waxay u soo qaadatay cunugeedii yarka ah. wax badan ay soo socdeen kadib waxay soo gaareen meel mool ah, waxayna tiri meeshan ayaan doonaya inaan wax ka soo qaatay intii uu sugaa. Sandra ayaana xilligaasi tiri okay maruu hadalkaada ayaa jira, iyadina moolka ayay gudaha u gashay, laakiin mar ay ka soo wareegatay 30 daqiiqo ayaa xilligaasi Sandra fikir ayaa ku soo dhacay. Kadibna xilligaasi waxay bilowday inay iska dhigto qof mobile ku hadlaysa, waxayna tiri okay maruu hadda ayaa imaanaynaa. Muuse ayayna xilligaas ku jeestay kaasoo hay darawalkii, waxayna ku tiri marwada waxay joogtaa dhankaas iyo Bulaga Market, marka waxaan doonaynaa suuqaas inaan tagno. Marwada asxaabta ayna weydiiyey wax Nigeria naga daadama ku jiraan, fikirkiina koonteen nagula wadaaga, aan dib ugu laabana sheekadeena.
xilligaas Sandra ninkii markii meel dhex marsiinaysa ayay tiri baabuurka jooji isagiina waa uu joojiyey iyadoo xilligaasi bastoolo la soo baxday ninkii ayayna madaxa kaga dhufatay mahan macnaha dhufashadii caadiga ahayd ee gig ayay ninkii ku siisay kadibna ninkii bartii ayuu ku dhacay oo micnaha waa uu ku murdaboolmay goortay si ay uga faa'iidaysay isla markiina hunigii yarka ayay daftiri meeshii ayayna sidaas ugala baxday iyadoo halkaasi ninkii darawalka uga dhaqaada weliba isagoo mirdaboolan dhan kalena u soo laabano Anita goortay sidaas moolka u soo baxday waxay weysay cunugeedii yarka iyo weliba Sandra iyo darawalkii kadibna meesha ay bilowday xilligaas inay ku bararato iyadoo sidaas oo kale arrinkii la wadaagtay ninkeeda Frank una sheegtay inay hadda wax gacan ay ku hayn iyadoo xilligaasi murugaysanayeen moobilkeeda qabsatay waxayna xilligaasi bilowday inay wacdo gabadhii kale ee walaasheeda ee Sandra waxayna ku tiri Sandra ay dhegayso walaalay oo ku baryaa qalad ayaan galay marka qaladka ay qaabin cunugaygii xilligaasna waxa ay bilowday Sandra inay walaasheed la hadasho waxayna tiri dhegayso aniga ma doonayo inaan calaalkaada dhegaysto haddii aad doonaysid cunugaada inaad aragtid waxaan kaaga baahanahay lacagta hooyada qalliinkeeda inaad bixisid weliba taas waa 500 oo kun oo neero haddii aad bixin weysan ogow cunugaada ayaan ka takhalusayaa Anita calaacalaysa ayayna tiri okay amarkaada ayaa jira aniga ayaa bixinaya lacagtaasna aniga ayaa hadda shubaya iyadoo xilligaasi akoonka isbitaalka ku dirtay waxayna tiri lacagta waa inaa halkaasi ku shubtaa Anitana isla markii waa ay ku shubtay lacagta ayayna dhanka isbitaalka ku dirtay ugu dambeyntiina Sandra waxaa loo sheegay in lacagta isbitaalka la bixiyey kadibna waxay tiri cunugayga aan ku arkaya Sandra ayaana tiri aniga ayaa gaalkaaga soo sheegaya ee waa inaad adiga war sugtaa Sandra ayaana xilligaasi bilowday meesha inay isagoydo ninkeeda Frank ayaa u yimaaday arrinkii oo idil ayay u sheegtay weliba Sandra inay cunugii qaadatay Frank sagordo intaasi maqla waa ka carooday arrinkani Sandra ayaana markale walaasheeda ku soo celisay kadibna waxay tiri hadda waxaan kaaga baahanahay lacag 100 milyan oo neera haddii lacagtaas bixi weysana ogow wiilkaada waan ka takhalusaya il dambana ma saaraysid xilligaasi markii hadalkaasi maqashay Anita aad bay u murugootay meel ayayna ku ballamisay isla markiina Frank ayaa isla markiiba lacagtii aqbalay kadibna waa ay soo baxeen meeshii lagu ballamiyayna xilligaasi yimaadeen Sandra ayaana meeshaasi ku sugnaaday weliba iyadoo xilligaa bastooladeeda wadata cunuga yartana dhabta ku haysa kadibna meeshii waxaa timid Anita waxayna tiri cunugaysi Sandra ayaana xilligaasi tiri waxaan kaaga baahanahay ninkaada inuu halkaan yimaado waan ogahay inuu hooska uu sugayo sidaasoo kalena boolis inay halkaan joogaan waa la socdaa marka ninkaada waa inuu halkaan yimaada isla markiina Anita waxay wacday ninkii waxayna ku tiri meesha waa inay wadaa isagana isla markii kama uusan diidin wuu ka aqbalay kadibna wuu soo dhaqaaqay ayada ayuu noo yimid sidaasoo kale ciidamada ayaa xilligaasi ayadana ku soo dhawaaday kadibna Sandra ayaa waxay ku soo jeestay walaashii Anita waxayna tiri ninkaad xaqiiqda muu sheegay misana ay xaqiiqdu u sheegaa Frank oo yaaban ayaana yiri maxay xaqiiqda ka hadlaysiin kadibna Anita ayaa xilligaasi bilowday inay darayso waxayna tiri Frank waxaan doonayaa inaan arrin ku sheego waliba adigan ka qarinayay Frank oo yaaban ayaana waxa uu ku yiri waxa way arrinka ay doonaysaa inay sheegto isla markiina waxay ku tiri wax kale maahan ee gabadhan Sandra iyo waliba Mama Agnes waa hooyadii iyo waliba walaashay Frank goorto intaasi maqla waa u nahay Sandra ayaana ninkii ku soo jeestay kadibna waxay tiri anigu waxaan doonayaa xaqiiqdaas kaliya inaan ku ogeysiiyo tan kale xunugaadii waa kan oo isaga ayay korka u saartay waxayna tiri taasoo kale aan kugu dare ani ma doonayo waxba lacaga kama baahni waxaan u sameeyay si aan xaqiiqda gabadhan aan banaanka ku soo saaro sidaas ayuun arrinku yahay Frank oo yaabanayana xaaskiisa ku soo jeestay waxaana yiri waxaad arrinkan iga qarsa beentan ay u sheegtay iyadiina waxay bilowday meesha inay ku calaacasho Sandra oo markale ninkii ku soo jeedatay ayaana waxay tiri hadda maadaama wax walba aan ku cadeeyay ma xiraysaa mise waa iska deynaysaa sidaasoo kale ciidamada ayaa xilliga agteeda ka dhawaay kadibna ninkii taliya oo ayaa arrinkaas oo idil maqlay kadibna waa ka naxay ciidamada ayuuna ku amray inay qoryaha hoos u dhigaan Frank ayaana xilligaasi yiri Sandra maya adiga qaladka maahan walaasha ayaa qalad gashay adigana uma qalantiin lagu xiro lagamana yaabo in lagu xiro aniga ayaan ka raali gelinaya wixii adiga kugu dhacay tan kale aan kugu daray lacagtani adiga ayaa iskale ee qaado Sandra way ka diiday waxayna tiri maya ma doonayo lacagtan adiga ayaa xaq u leh kadibna meesha ay ka soo dhaqaaday iyadoo xilliga isbitaalka ay soo aaday Frankna xilligaas kama uusan harin oo ka soo dawbaxay oo dhanka isbitaalka ayuu yimid kadibna wuxuu u yimid Mama Agnes isagoo xilligaas bilaabay inuu raali gelin weydiisto maadaama isaga qalad weyn uu galay qaladkaadna wax kale ma ahayn iyadoo joogtay gabadheedii inuu siyaas ku guursaday isagoo xilligaas raali gelin weydiistay maamadiina kama aysan diidin isla markii uu ay ka aqbashay waxayna tiri okay wiilkaygiiyo haddii xaqiiqda ogaato waa fiican tahay gabadheedana way iska dhiban tahay marka uu qaban Frank oo murugaysan ayaana meesha isaga soo tagay dhan kale u soo laabano Anita oo gurigeeda joogta ayaa Frank u yimid kadibna wuxuu yiri xaqiiqdaas waan maxaad iga qarisay iyadiina waxay bilowday xilligaas inay meeshii ku calaacasho waxayna tiri si aan u aaday dhankaas UK
waxay dhahayeen dadkan iyo weliba noloshan faqiirtinimada dadka ama ee dhowl dhahaa reer faqiirin ayay ka soo jeedaa marka sidaas ayaan u qariyey frank ayaana yidhi sidaa hadday tahay hooyadan aad dayacday anigana waxay tirmaysay koodhe isagoo xilligaas cunugii sharga gacanta ku dhigay boorsiis yartaana guriga ka jiitay waxauna ku yidhi meeshan ayaan kaaga tegayaa tan kale aan kugu daro cunugan iyo afaariis haddaa isku soo dabageshta la soco wixii kugu dhaca adiga ayaa isku dhigay minaha adduunka ayaan kaa qarinayaa sababta gabar hooyadii weliba walaasheed dayacday anay wax ii tari mayso anita ayaana xilligaas bilowday ninkeeda inay ku calaasho waxayna tiri waan ku baryaa eega tegin arrinkaana mar dambe samaynayay laakiin isaga mausan dhegaysana meesha iyuu ka dhaqaaqay kadibna sandar ayuu hore usii maray waxaanu ku yidhi lacagtan 100 kun adiga ayaa iska leh oo nolol cusub ku bilaabo iyo weliba waxbarashadana kusii wado iyadii marka hore waa ay diiday ugu dambeynna way iska aqbashay maadaama uu ku qasbay kadibna frank iyo weliba cunugiisa wadankii dhan ayay ka duuleen waxaa fusaartay anita iyadii iska murugaysanaya dhankaas iyo guriga hooyad ku soo laabatay iyadoo xilligaasi cafis weydiisatay sheegtana inay qalad weyn ay gashay maamadii maadaama hooye aheed gabadheeda kama aysan diidin isla markii way iska soo dhaweysay maadaama qaladkeeda ay qaratay saxaabay sheekadana halkaas ayay ku soo gabagabowday haddaba su'aalayna weydiiyey cashir nooca ayaad ka barateen sheekadani bal fikirkiina koontig nagula wadaaga sidaasoo kale muuqaalkan haddaa ka hesheenna laagtaa ka hilmaamin oo laagta iska saar sidaasoo kale subscribe-ta naga hilmaamin walaalkiin barqadani leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu